dalkan anaga iska waanu dhaaranay waxaan u taaganahay inaan dhiigana u bixiyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dah furay mashruuc iska wax u qabsa oo laga hirgelin doono dhammaan qaybaha kala duwan ee talisyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raagi oo ay wehliyaan saraakiisha taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhagax dhigay dhismayaal cusub oo laga hirgelin doono taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee wasaaradda gaashaandhigga ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay General Maxamed Xasan Raagi taliyaha hoggaanka gaadiidka ahna gudoomiyaha guddiga dib u dhiska xarumaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuna soo dhaweeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka goobta dhismaha laga dhagax dhigayay jaabadii ugu horeysay oo la qaado waaye in mashruucan mashruuc xoogga dalka Soomaaliyeed ay isxilqaan ku dhisaan guryahooda dibna u soo nooleeyaan xarumaha guryaha ku yaala xarumaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed أنا كأجمع هذا علنا أبابك في ما بدن كسوق بالسي مدري تعيد كحوجة دلك الصوماليات تليها عيدا كحوجة دلك الصوماليات سرقوا تدوى يوسف راجع هي مشروعا وجمع هذا عليه سراكيشو ياسقرت عيدا كحوجة دلك الصوماليات اسكوها ولا هوشاني اسكا وحوق بساه وعرب جودهان إن هل كان عن وجمع هذا عليه وجامد تلسكبو hoggaanka dhismaha iyo guud ahaan tiimamka ku qoran hoggaamada iyo dadka kala duwan ee halkan taagan ee saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo lafteeda dawladda isku jira oo ka kala tirsan colol kala duwan xaqiiqatanka ee dalkan anaga iska waanu dhaaranay waxaan u taaganahay inaan dhiigana u bixiyo oo wax ka qaalisan oo aysan jirin cidda uu sugaayo inay dhisatana waa anaga waxaan rabaa markaa maanta runtii farxad weyn ah oo marnaba aan la soo koobi karin in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishiisa saraakiil xigeenkiisa alif liiday dabligiisa farsamo yaqaanada ku jira haday noqon lahayn injineero haday noqon lahayn faryaamo haday noqon lahayn muxuu ahaa sheegay noocyada kala duwan ee farsamadan loogu tala galay inay si iskoor ah oo bilaa shuruud ah ay u soo baxaan ay halkan soo istaagaan oo ay go'aansadaan xarumahooda inay muxuu ahaa sheegay ay dayac tirtaan oo gacmahooda ay ku dayac tirtaan inuu istaagaan waxay taa farxad ومد أنك وضع قيب قاعدة دون ومد أن إن شاء الله تعالى أن إن الله أنت نقدم بيسة أن أهربي دونه ده حل جلي دونه تاريخ دونه ويغرم ميسة ما أنت هل كان أنت أجنها بالله وقال نجوجنا لكن ضمات كذا نوجارين ugu dambeyn taliyaha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la gaarsiiyo guud ahaan talisyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mashruuca ay isku xil saareen saraakiisha iyo askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan gaari doonaa berritan anagoo ka wadna sectoriska waxaan gaari doonaa anagoo ka wadna talisyada guutooyinka waxaan gaari doonaa anagoo ka wadna talisyada ururada taas ayaa waxay noo suurta gelinaysaa waajibaadka iyo mas'uuliyadda saaran inaan si hagar la'aan ah aan muxuu ahaa sheegay u hanano ciidankuna ay noqdaan maamulkooda oo fadhiyo oo muxuu ahaa sheegay u shaqeeya si wanaagsan u shaqeeya Maxamed Cali Sabriye warbaahinta codka ciidamada magaalada Muqdisho